من الدawadayaal meel walba ku sugan tihiin daafaha caalamka iyo gaar ahaan kuwa wadanka ku sugan caawa waxaan hargeysa ku kulanay oo aan chance soo helay marka kubadda cagta laga hadlayo waqti xaadirkan qaar kamid ah legendska kubadda cagta oo ku xadhan taariikhda iminka waqtiyadii dambe kubadda cagta waa haddaan ka soo bilaabo Axmed Carab oo in badan wada garanaysaan kana mid ah weeraryahanada dalkan leeyahay iyo sidoo kale Sheikh Xamsi oo in badan wada garanaysaan labada nin waxa lagu xasuustaa koobkii gobolada ee ugu dambeeyay 2020 oo ay hayeen raggii Hargeysa Stadium magaca weyn iyo taariikhda ka raacday meelo badan bay iskaga hor yimaadeen marar badan oo sawirradooda meelaha la isku soo dhajiyo ama kulamo xasaasiya sidii kii galabtooda ay wada ciyaarayeen Hargeysa Stadium oo kale ay iskaga hor yimaadaan caawan chance soo helay inaan balabadoodii meel ku wada kulano habarar badan sida Xamsi sheegay ay soo wada ciyaareen oo ay sida Ethiopia kale dawlad deegaanka koobkii ka socday koobkii hore ay ka soo dhex muuqdeen iyagoo isku tiima aan ku horeeyo Axmed Carabo oo barbarkayga fadhiya kulli hadalkaas kuma fiican marka hore Ilaahay baa mahad la iskariyo kulli awiis wanaagsan baan leeyahay meherad baa ku kulanay aniga Muuse Nootimi Xamsi damar Xamsi oo taqaan Xamsi oo Muuse kabtan Muuse la raayo magaciisa weydii ka dambeeya flaya aad u salaamay taageerayga aad baan salaamiyaa dhamaan kabtan Xamsaan isna kalbadsi iyo hadalka soo noqoto bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahad leh marka awalan iskariyo aad baan u dhahay walan ma sha Allah in aawan ku kulanay al jirtay aad baan ugu faraxsanahay kulankeena Axmed Ali Carabo aan saaxiib in badan saaxiib ahayn inkastoo kamid yahay muusiyaasheeda waaweyn kubadda cagta marka laga hadlayo dad badan oo waxa jira taageerayaal ah dhalinyaro fara badan meel walba ku sugan yihiin barinteynaan galin caawa halkan kulankeena aynu isku xog wareysanayno Axmed waxa kugu la yaab badnaa kubadda cagta inta aad ku jirtay maxaad kala kulantay dhacdooyinkii garoomada aad ku arkaysay سكري هرتها ورئيس ومن الناس ودي يرقرون كله وهنا chance نلا قضي والله دعين كيلو بقول لا يبقى بدنا دي كله يا كل ده كاس ومدبوها اللي وده يقول يا بدنا شخصيا ولا واحد يقول له يا بدنا ممكن لكن واحد يقول له يا بدنا ما تعرف كل واحد ساتره هل دب باشرتي ودينين بان عربابي كرينو ني صاحب كيا انا تاغوي وكان نكاس يقول لا يابك بدنا لكاس يقول بدنا نكاس يقول لا يابك اد بك يا سلام يا صاحب اد بك وجعلي حمسي ولا سغراي سغنا كلمه ويدينو والله دبابها isku badan yahay dibaabaha naga soo gaadhay intan ku jiray saaxada kubadda cagta sportiga aan ku jirnay walow aan la sheegi karin oo in laga sheego baan habboonayn laakiin dib iyo dheef buu leedahay oo dibku iska jira mar walba uu jiraayo inkastoo social media la isticmaalayo ama wasaare ilaam meel kastoo lagu isticmaalo waxa ugu darnaa ku magaciisa isticmaalay lagu darnaaye aniga iska geedhigay kuwaas ma ugu darnaa intaas aan garanayn oo halkan maxaad kala deeyay waxaan kala yahay diniyo waxaan naga daayo waan iska kinaafin anigu inta hore iska dhigaysiinay dadka la hadlaysan ama dadka waxa doontaan weydiisanaysan min fadlan waxaan leenahay naga daayay dhibka ama qof caadiyadii iska wada hawshin kala soo garanay kalmada xabsi ka dhawaji saaxiib adiga weeray ku dhacdo sarta kale saaxiibka Muuse kulli mar ana kaga badnaa filayaa waxaan saddex beej wax bay u dul sameeyeen oo dad badan ma la barada laga wada qoray war afiya saaxiibna ku badskiin deynaadeed magaciina ku qortay ma anaga Muuse wada wanaga cabashadiisa soo gudbinay inkastoo Muuse deega cabasho baday Axmed kulamo badan bas ka hortimaadeen oo marar badan waxa jira social media kulamo xasaasi kijiga ugu dambeeyay kulamo adag bay haayeen kulamada adiga iyo kabtanka iskaga hor imanayeen keeba soo kartaa xasuustaada marnaba kama baxo niyo wallahi horta markii koobad maaha Sheikh Xamsi wada kulano horta aadna waxaan jecelahay markasta iska garbac markasta Muuse inaan iska garbac ciyaarno waana suurtagal karweeday hal mar baan isla garbac ciyaarnay alxamdulillah ilaahay ma hadu sugnaatay markaana waan ku guuleysanay intii kale kulay Muuse iska hor imanaysa kulay aan ba ka guulo badnaa filayaa dhagax burada noqoto degmooyinkii day jarartii noqoto halkan aad baan ugu salaamayaa gobolkayga jarar dhamaantiin aad baan idin salaamayaa بيانو تشرب أنا ودك حبور معهن
dee haya waa councilor gobol bay kala nahay sheekha laba gobol ka tii haya imka 2 gobol baan kala nahay sax isagii gaawanaan aad u jecelay aduudud isagii cabdidna halkan ma aad baan uga salaamaya saaxiibkay qaaliga iyo laba nin kale aad aan u iloobin cad samad cuddo on kastan aad u jecelay isaguna ku badiisa iyo faadin jir sax aad bay idin salaamayaan sax xamsi kulamada badanaad ka hortimaadeen axmed carbaabay waqtiga koobka ku guuleysteen mooyee de markas kamaydan garab ciyaar chance sumeedan helin laakiin inta waa iska horimaysay kulankii galabta waxa ugu dambeeyay wallaahi axmed cali carabo muuse weyn horta in badan baa iska hornimiyo dadku weliba ay sii xamaasad iyo xiiso usii yeeleen inkastuu iga gula badan yahay insha allah waxaan rasiinaya anoo jeclaa markasta inaan iska barbar ciyaarno sababo jira awgeed inaan iskaga barbar ciyaari karayn walow aan de soo wada guuleysanay isagoona hogaaminaya isagoo weliba laacib noo ahaa oo muuseyaasha weyn ka mid ahaa tiimka ku jiray isaga iyo cabdiwaduud iyo caqilkii iyo rag badan oo halkan jooga kabtankaygii aad baan u salaamayaa sanadkii hore cabdiraxmaan lambar isaga iyo macalinkii shariif aad baan u salaamayaa carabo waa nin aan waqti wada badan soo wada qaadano oo dee in badan aan soo wada joognay oo dee aan safaro badan wada galnay oo aad baan u jeclay inaan mar walba agtiisa ka ciyaaro laakiin inkastoo iminka aan dhowr kulan iska hornimi ka guuleystay insha allah waxaan rajeenaya inaan dee qadarka ilaahay waa halkiisa laakiin inaan soo dadaalo insha allah guushayda iyo guusheeda waa isku mid tiisi iyo tayda waa isku mid dadku si kale wax u qaadqaadaan laakiin anigu waxaan jeclay saaxiibka hadduu guuleystay haddaan guuleysto inay same time baan u arkaa mar kasta aad baan u salaamaya saaxiibkii mar labaad su-aashaan idi weydiinaya dadku ay hadal hayaan xul qaran baa la sameynaya idinku waxa idii dhiman kubadda cagta ma jiraan maadaama magaciin maanta halkii ugu sarreeya ka joogtaan waddankeena axmed mislada waxba ku waadhay kubadda cagta no wallaahi horta dee horta marka hore ilaahay bay mahad u sugnaatay horta xulkan qaranka ee somaliland la sheegayo aad baan soo dhaweynaynaa intaan nahay bahda sportska ba kubadda cagta ciyaarta kolley somaliland marka la sheegayana sportskeeda dee hargeysa keliya maaha waan filayaa gobolladoo dhan baa laga soo xulayaa aad waa tartan ayaan filayaa tartankana dee kolley saa uga qayb qaadan layn amba dee uga mid noqon lahaa ayaan filmgeeda ku wada jirna aniga kabtankayga muuse halkan aad uga salaamaya halkan aad uga salaamaya isaguna dee way barbar fadhiyaa salaam baan kala daaleeyay oo muuqaalkii koowaad kasoo wada muuqataan waa muuqaalkii koowaad horta aan kasoo wada muuqano waa dhibi sawir bay wada galayna ka daa dadka dhibin hal sawir bay wada galnay war muuse hadda adaa lagu soo sabootinay muuse igada muuse halkaa wax muuqaala sawira lamay laakiin waad soo dhaweynaysaan kabaha sports ahaan inaad ka mid noqotaan inaad ka mid noqono dee wallaahi ka mid noqotaan shanayna kolley dadaal bay u badantay dadaal bay u baahantay wax walba dadaal bay u baahan kolley muuse dee muuse anin waan qabaa labada isaga iga dhow waayo anugu waxaan ahay maanta dee ciyaartooyada somaliland marka la eego kumay marka ugu casaanka badan baan inaa run baasa sheegaa baalkaasa igu dhib igu daran anigoo casaankaasa igu dhib badan casaankaan insha allah bal siuman midkaayo midun buu dhici insha allah inkastaan kabtankay muuse aada u jecelay dee asleebal kabtanka xulka somaliland ayaan u rajeynaya insha allah kolley inkasta dee gobolka burco dee tog dheer oo kabtan usoo ahaa bal waxaan ku rajeynaya sheekh xamsow amba muusow kolba saa u taqaanaan inaad kabtanka somaliland noqoto insha allah aad ka mid noqoto ayaan ku rajeynaya saaxib qaali magacan dee kolley caraba ah oo dadka maqashiya muuse kolley waa naalays cusub ku qarsooned warmaanaya maxaad ka leedahay xulka dhawaan la wada lagu rajowayay wallaahi waan bogaadinaya waana soo dhaweynaya insha allah haddii anigii axmed iyana lagu daro iyo rag kale oo kamid ah inkastoo dadaal iyo dee tartan loogu jiro oo dee dadkii intii lagu daro liiska ama iska dhex arka haddaan noqono dee insha allah inaan guulo fara badan soo gaadhno ama dee waan rajeynayna insha allah in lagu daro anigii axmed cali muuse weynba waan rajeynayna insha allah waxaan soo dhaweynaynaa tartankaa loogu jiro baan ugu jiraynaa insha allah biidnillahi kariim ugu dambeyn koobkii gobolada magac weyn iyo sumcad baa ka dhaxasheen sidoo kale abaalmarinaa ka dhaxasheen maxaa halkan ka leedihiin dadkii mar walba idin garab taagnaa taageeraha idii ahaa magaciinu inuu halkaa gaadho sabab u ahaa marka hore ilaahay baa mahad u sugnaatay marka xigta waxaan u mahad celinayaa madaxweynaheena jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biixi cabdi oo go-aansaday inuu tartankaa u qabto gobolada aadna uga mahad celinayaa marka xigtaan mahadla waxaan uga mahad jeedinayaa wasaaradda xiriirka somaliland iyo wasiirka sportska boosmire ayagana u mahad celinayaa kolley walaahi sakriya doorta ilaahay bay markasta mahad u sugnaatay dee waxaan idhaa dee magac alxamdulilah
kaasumaan deeqa qabaa ayaan ka faa'iidnay iyo de anigii muusoo laba gaari ka helnay waxba qari kari maaya laba gaari ha sax raggii ka faa'iidahay kalay ha ragga ka faa'iiday magaca iyo dhaqaalaba haya dhaqaalaba ka faa'iiday insha Allah de halkan waxaan wata hal dardaarmo halkan uga jeedinayaa gobolka Togdheer sax kolley gobolnimo dheera waan filayaa kolley muuse kolley kabtan basi aan soo filayaa صح tante qaar kaasoo doo bixin ma filayaa kolley kaaga yarado ku dheer leegiyo filayaa صح insha Allah intaas ay dirjinaya xamsan siina isaguna kelmadiisa ugu dambaysa waxaad leedahay dadka ku daawanaya taageerayaashaada iyo cid walba garabkaaga ahayd waqtigii iyadii jaaniska fiicanad heshay bismillaah alxamdulilah rabbil caalamiin ilaahay baa mahad leh mar labaad waxaan taageerayaasha waxaan sheegayaa markasta insha Allah dina dhiirigelinaya waxaan ku soconaynaa waa taageerihiina in aad baan idin salaameynaa waxaan leenahay musi weyna halkan waxaan ugu mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo waxaa la yidhahdaa wasiir boos mire iyo xiriirka guud waxaa la yidhahdaa xiriirka kubadda Somaliland dhammaan madaxweynaha qulay mar walba inuu isboortiga horumariyo hanti iyo maal iyo waqtiba geliyo jecel waxaan leeyahay madaxweynahana aad baan kaaga mahad celinaa adigana sidaa weynaad isboortiga u tixgelinayso u dhiirigelinayso insha Allah waxaan leenahay inaad ku hayo qaar kale fara badan baad noo qabatay insha Allah taageerayaasha waxaan leeyahay kabtan ka wahay taan taageerayaasha inaan u gelin xayiraadii baa laga qaaday isaga maxaa halkaas qaasa kale wallaahi dii waxaan dhahaa ma garanay haddii laga qaaday kulli xayiraad markii hore may saarnayn oo waxaan qaadan galay muu jirin muusiyaasi waxaan leeyahay inay soo hagaajiyaan oo is soo dhisaan insha Allah imka iyagoo dhisan oo ay soo laabtaan iyagoo sidii hore ka awood badan tahay baashwaana inaan jarno goyno door goyno insha Allah waan rajeynaynaa isma galayaan kubadda iyo waxaan waa xirfado wax qof garanayo in la keeno dadka ciyaaraya imka wareegga u socdanaya insha Allah waxaan rajeynayaa dhalinyaradaas inay bedeli doonto habkii hore berigii hore ama ku iman jiray ama kuma iman jiray markasta inay bedeli doonaan ama ka maari doonaan gobolka insha Allah waxaan rajeynayaa guulo fara badan oo anaga kuwa naga dambeeyay kuwa dhalinaya kuwa si dhali doonaan ay gobolka gaarsiin doonaan insha Allah musaan weyne Axmed Cali Arabana waxaan leeyahay gobolka insha Allah ku baahay adigana wax la doonayaa sidoo ma lahayn ya muusow adigana waan ku dareynaa insha Allah adana kabtan noqon doona insha Allah waxaan rajeynayaa guulo fara badan gaarno gobolka Togdheer dhammaan waxaan rajeynayaa in sanadada dambe la furi doono insha Allah aan ku soo muuqano oo meel fiican gaarno ama qaadno insha Allah billahi kariim taageerashada waxaan leeyahay aad baan idin salaamayaa mar walbana waan jecel lahay waxaan ku soconaynaa dhiirigelintiina dadkii ama na soo taageeray ama de mar walba dhiirigelintiina la daba socdaan waxaan leeyahay aad baad mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad baan mahad celinaa horta marka hore ilaahay baa mahad u sugnaatay warse kariye adigu qudhigaagu de waraysiin baad wadaa horta adigu ciddo mayaan ku waraysanba kawdhe